السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرفدا أما شقدا وإن سميس شغل حريرة علمي جار waxa loo yaqaan takhasus asigoo qofka raacayo qawaaniin ta u dagsan shaqadaasi si uu u guto waajibaadka saaran asigoo ku bedelanayo mishaar qof walba xirfada uu leeyahay midaas ayaa u noqotay dakhli uu hadhow ku maareen karo noloshiisa sidoo kale waxaa jiro dad aan wax shaqo haysan waxaana lagu yeeraa kelimada ah baangamuundadaasina waxay sabab u noqotaa in wax soo saarka ama hal abuurka dalka uu hoos u dhaco iyo dhibaatooyin iyo culeysyo kale oo halkan aan ku soo koobi karin arintaasi si walba ay ugu muuqato mid adag haddana waa mid uu halkeedu uu suurgal u yahay wuxuuna ku salaysan yahay inta badan ka hortag oo ay ka bilaabanayso xilliga caruurnimada iyo aasaaska oo si fiican loo dhiso iyadoo ay jiraan waxyaabo badan oo qofka mustaqbalkiisa saameyn karo laakiin caruurta oo si fiican loo koriyo maskax iyo jir labadaba waxay qayb aad u weyn ka qaadan kartaa mustaqbal wanaagsan oo ay yeeshaan caruurta markii ay marayaan waxbarashadooda darajada hoose waxay ku fikiraan xirfad ay ku shaqayn lahaayeen mustaqbalkooda mar walbo ay da'dooda sii horumartana maskaxdoodu way balaarataa xog cusubna way helaan oo ay saameyn weyn ku yeelata isbeddel ku dhaco doorashadooda iyo higsigooda hore qaybta ugu muhiimsan nolosha qof walba waa qaybta qaangaarka culimada cilmu nafsiga waxay ku tilmaamaan xilligaasi xilliga doorashada oo ay macnaheedu tahay xilliga ugu mashquulka badan tahay qofka maskaxdiisa ama arrimaha la xiriira mustaqbalkiisa waana xilli uu qof walba uu soo maro doorka waalidiinta ayaa ah mid aad muhiim u ah xilliyada kala duwan ee koriinka caruurta oo ay ku jirto xilliga doorashada mid dhaqaale mid barbaarin iyo mid talo iyo diyaarin oo loo diyaariyo mustaqbalkooda waxaase sidoo kale laga maarmeen talooyinka dadka aqoonta iyo waayo aragnimada leh si qof walba u helo xog buuxda oo suurtagelin karto inuu gaaro go'aan sax ah arinta xog raadinta ku saabsan xirfadda iyo mustaqbalkaba waxaa habboon in saddex qaybood la mariyo in qofka xog badan ka aruuriyo naftiisa kadibna uu isqiimeeyo in qofka uu aruuriyo kadibna uu fahmo xogta la xiriirta xirfadda uu markaasi danaynayo in xogta kuu soo baxday qiimeyn koowaad uu naftiisa qiimeeyo uu u barbar dhigo xogta uu ka helay xirfadda uu markaasi danaynayo si uu go'aan u gaaro inuu ku habboon yahay iyo in kale waxaa jiro cilmi baarisyo badan ay ka sameeyeen culimada cilmu nafsiga arrinta la xiriirta isku habboonaanta xirfadda iyo takhasuska uu qofku danaynayo iyo shakhsiyadiisaba mid ka mid ah cilmi baarisyada ugu muhiimsan waa mid uu sameeyey caalimkii Wayne Holland oo u kala qaybiyey shakhsiyadda qofka dhowr nooc oo gaaraya tiro 6 ah oona kala ah qof fikirkiisa xaqiiqda u dhow qof baare ah qof hal abuure ah qof bulshadeed qof asaase ah qof maareeye ah maxay idinla tahay eray bixinta ugu habboon ee 6dan qof aan kor ku soo xusay ra'yigiina waa ii muhiim waan soo dhaweynayaa